muuqaalkan aad arkaysaan waa barakacyaasha ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Mar aan kormeeray saakay ayaa waxa ay iga warbixiyeen xaaladooda nolol. Waxa ayna sheegeen xaalad aad u adag in ay ka haysato dhanka hoyga. Waxa ayna sheegeen in mar walba ay cawasho gudbiyaan ayna wax codsadaan mana jirto cawashadooda cid ka soo jawaabta. waa sida ay sheegeen barakacyaashani. Waxa ay sheegeen in ballanqaadyo hore lagu sameeyay ilaa iyo haatanna aysan helin ballanqaadyadii loo sameeyay. waxay warbixin kooban TV-ga Saab siiyeen in dhibaato xooggan ay uga nool yihiin dhanka hoyga. waa kuwan ayaga oo ka hadlaya arrimahaasi. walaalahaygi waxa idinka codsanaynaa in rabbina idin soo dhiyo, rabbina uu idinka soo qaado. anaga waxba ma haysan xalo dhan roobka da'ay kor baan u taagnaan, raas baan dhex taagnaa, dharkii wixii aan haysano dhan way naga qoyeen. waxa idin baryaynaa inuu rabbina idin soo dhiibo oo ummadda Nabi Maxamed cawasada aad u cawsanaysiin in Ilaahay idinkaaga soo qaado oo Ilaahay anagana oo Ilaahay idinka soo qaado baa idin baryaynaa. bismillah. wax hadda noola keenay oo dhow ma jiraan, halahan reeska nahaay oo halahan dhibka nahaay wax aan aragna ma jiraan. walaalayaal waxa idinka codsaynaa anaka oo ku joogno kan tabakal aan waxba haysanin on hooy haysanin on siyeer rabno bacyaal aan rabno wax walba on dhibaataysannahay. walaalayaal inaad gacanta naga qabataan oo roobkan on ku jirno oo hooyno noo suubisiin oo wax walba on u baahannahay. wax walba wixii loo baahan yahay waad ogtihiin idin sheegaya inaad gacanta naga qabatiin aan rabnaa walaalayaal. maamulku wax ballanqaad oo idin sameeyay ma jiraan? wax ballanqaad oo noola yimid oo nool sameeyay wixii Ilaahay noo keeno waa idin keenayna nool yiri waa jirtaa, laakiin wax hadda oo gacantayna soo gali ma ay jirta. maxaa codsanaysaa hadda waxaan codsaynaa inaan nool keeno ba siyeeri go'yaal on ku hugsano dhaxanta dhirmaayada oo wixii on jikadaas ku shida lahayn undis Ilaahay ka oo soo sahal oo inoo keenan oo gacanta naga qabtaan arnaa walaalahayna. anigoo ku hadlayo codka barakacayaasha Tawakal. dhibaatada waxaa ka koow ah hoygu waa u jeedin sidii u yaalo waqti xaadirka aan joognana haddana waxa waaye waa waqti roobeed. waxaa loo baahan yahay caafimaad dar waxa ku imaan karaa haddii mataqaanaa adiga meel fiican aad ku helaynin oo mataqaanaa biyo ku dhex yaalaan oo baahaloo dhan cawdi u socdo caafimaadkaada waa yaryahay. ballanqaad waa jiraa wadar dhowraa naloo yimid oo naloo soo diray dad. waxaan ballanqaadka naloo ballanqaadin wax baana la su'aalay. waxaa yireen mataqaanaa haddii Ilaahay wax noo dhiibo waa idin keenina ballanqaadkaas waa jiraa, laakiin haddaba wax ka yimid oo gacantayna lagu sugay ma jiraan. waan sugaynaa ballanqaadkii. taas wixii sababay maamulka og, Ilaahay ana og ka dambeeya. anaga waxa waaye dad waxaan nahay oo mataqaanaa dhibaataysan oo mataqaanaa in loo kaalmeeyo u baahan. wixii naga ballanqaad haddaan waayna haddana haddii shacabkii amba bulshadii oo amba magaalo joogto amba tuulo jirto haddii mataqaanaa wax waliba loo qabanayo anaga nala dhaafay waxaan u qaadanay marka in amba yastina ahaato ama sana nasiib darra ahaato taas waxa iskale maamulka iskale jawaabkiisa. taas waa filaa naftirka in doodeeda geey degma geey in iri maxay ku dhacday shacabkan meesha ku baaba'ay maxaa loo arki waayay nin wax la sii ninka waa ii war xumeey nin maamul waay marka ani waa warkiisi waa raaci waay. waxaan iri mataqaanaa haddii ay saas tahay bal anaga ilaahan sugu haynahay maamulkiyaan sugu hayna haddaan dadkaas shacabkaas ka mid ahayn Ilaahay baa og. haddaan ka mid nahayne waxay helaan inay helnaan diyaar u nahay. dadkii dhageysanaa waxaan u baaqaa in nagala soo gaaro dhibaatada muuqato oo na haysato in nagala soo gaaro oo maxdintaan waa barasho caruurtaan waa saanay meel u joogtaa wax barasho ma haysano biyo ay mataqaanaa lagu dhaqo oo wax dharka lagu dhaqo xataa ma haysano. waxaa naga maqan oo kale caafimaadka dhinaciisa waa naga maqan yahay. intaasaan ka codsanaynaa in wax nalaga qabto. ma ahan markii ugu horeysay cabasho caynkan oo kale ay soo jeediyaan barakacyaasha ku nool kaamka Tawakal ee magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. mana jirta cid ka jawaabta cabashadooda. maxamed yaasiin maadi maxamed Alfa warbaahinta Juba Shabelle News magaalada Jowhar.